warbixin cusub oo la shaaciyay ayaa lagu sheegay aaladda TikTok inuu halis ku yahay xogaha xasaasiga ah ee dalalka iyo shakhsiyaadka. Horeyna wadamo kale ayaa dalkooda uga mamnuucay isticmaalka application-kan ama barnaamijkan TikTok uu Shiinaha leeyahay kadib markii ay ogaadeen inay xogaha shakhsiyaadka iyo tan dalalkaba ay u dhacaan. Aaladda TikTok ayaa la sheegay inay TikTok u isticmaalaan madadaalo oo keliya, balse ay jabsashada xogaha sirta u isticmaasho Beijing. TikTok ma aha sida dusha sare uu uga muuqdo oo keliya, mana ahan oo keliya application lagu wadaago muuqaallo iyo sawirro qosol ah, balse TikTok waxa ay u shaqeysaa si casri ah, ayaa warbixinta lagu yiri. Aaladdan TikTok ayaa lagu tilmaamay inay tahay mid si fudud ay dowladda Shiinaha xogaha uga urursadaan uguna keydsadaan. Xogahaas oo isugu jira kuwo qabyo ah iyo kuwo dhammaystiran, iyada oo mararka qaar xogahaasi uu cod ahaan ay uga isticmaalaan gudaha aaladdaasi. Aaladda TikTok waxa ay si fudud u ururisaa xogo xasaasi ah oo ay shakhsiyaadka bartaasi isticmaala leeyihiin. Haddaba application-kan waxaa lagu sheegaa inay dowladda Shiinaha u nashqadeysay inay xogaha qarsoon iyo kuwa aan qarsooneynba ay si fudud ugu hesho si doorka hogaamineed ee ay dunida ku leedahay ay u soo xoojiso. Warbixinta toddobaadkii hore la soo saaray waxaa lagu sheegay cadeymo hor leh oo muujinaya TikTok inay halis ku tahay amniga qaramada ama wadamada ugu awoodda badan caalamka. Sidoo kalena warbixinta waxaa lagu qeexay TikTok in ay ku guuldareysatay in ay u hoggaansanto shuruucda Application Store iyo Google Play ay ku shaqeeyaan. Warbixinta waxa ay walaac ka muujisay khatarta application-ka TikTok uu leeyahay sirdoonka dalalka, in qaab online ah ay xogta ay Shiinuhu doonayaan qaab aan la fahmaynin ay ku helayaan, taasina ay tahay halis dunida oo dhan ku soo food leh. Bishii Maaj 2022, cilmi-baarayaal baaritaan sameeyay waxa ay sheegeen TikTok oo adeegsanaya application-ka App Store-ka in ay u dhaceen xogo xasaasi ah ee dadka bartaasi isticmaala ay leeyihiin. Xogahaasi oo ay ka mid yihiin sirta akoonnada dadka TikTok isticmaala, oo ay helaan cinwaanada kaararka qaabka online-ka ah wax lagu kala iibsado, cinwaanada qofka u gaarka ah iyo fariimaha ay shakhsiyaadka isdhaafsadaan. Sanadii 2021, TikTok waxa ay ogolaatay in ay $92 milyan oo dollarka Mareykanka ay bixiso ama ay ku bixiso kiis maxkamadeed oo loo haystay kadib cadaadis xooggan oo ay la kulantay. Wadamada horey u mamnuucay TikTok maxay yihiin? Dowladda dalka Hindiya ayaa dalkeeda horey uga mamnuucday isticmaalka aaladda TikTok iyo barnaamijyo kale oo laga leeyahay dalka Shiinaha, kuwaas oo ay sheegtay inay khatar ku yihiin dalkeeda. War qoraal ah oo ka soo baxay Hindiya ayaa lagu sheegay in barnaamijyadaasi ay khatar ku yihiin madax-bannaanida dhuleed, sumcadda iyo ammaanka waddanka Hindiya. Guud ahaan waxaa dalkaasi laga mamnuucay 59 barnaamij oo application ah, waxaana ka mid ah WeChat. Wasiirka warfaafinta ee Hindiya ayaa sheegay in sababta ay u mamnuuceen isticmaalka barnaamijyadaasi ay tahay dacwo uga timid meelo kala duwan. Dadkaas ayuu wasiirka sheegay inay xogtooda gaarka ah ay u dhaceen barnaamijyada ama application-nada laga mamnuucay waddankaasi iyadoo aanan wax ogolaansho ah laga weydiin. TikTok oo xaruntiisa ay tahay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha ayaa caan ka noqday gudaha dalkaas ka hor inta uusan ku baahin dalalka kale ee caalamka. Dalka ugu badan ee aaladdan looga isticmaalo TikTok ayaa ah dalka Hindiya, waxaana adeegsada dad lagu qiyaasay 120 milyan oo qof. Shirkaddan ayaa lagu eedeeyay inay xiriir toos ah la leedahay dowladda Shiinaha, xogta khaaska ah ee dadka isticmaalayana ay u gudbiyaan dowladdaasi. Dalalka aadka u dhaliila waxaa ka mid ah Mareykanka, oo qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee dalkaas ay ku baaqeen in baaritaan lagu sameeyo TikTok. Haddaba arrintan haddii ay suuro gasho oo caalamka qaybo ka mid ah laga hakiyo application-kan TikTok-ga, Soomaaliya oo aad looga isticmaalo gaar ahaan dhalinyaradeeda ay aad isugu madadaaliyaan barnaamijkan, maxaa ay saameyn ah ku yeelan doontaa tallaabadan ay u ololeynayaan dowlado ay hogaaminayso Mareykanka?